waayahay dhanka markaasi kalsoonida maxaa dhaawici kara waxyaabaha dhaawici kara kalsoonida labada qof ee isjecel maxaa ka mid kalsoonidu waa shay isaguna muhiim oo ah lamaanaha aad kalsoonidu waxaa la yiraahdaa waa biyo weel ku jira oo nadiif ah tusaale ahaan koobkan biyaha ku jira waa biyo aan wasakh ama nadiif ah aan ka wada haddii koobku sida uu quruxda badan yahay iyo biyuhu si ugu jira si u qurux badan yihiin haddii ay wasakh ku daadato ama ciidan ku shubno waxaa isbedelaya midabka biyaha waxaana wasakhoobaya gudaha koobka marka waxay noqonaysaa inuu dushiina ka qurux badnaado hoostiina uu ka xumaado ama biyi ay ka xumaadaan kalsoonida lagu sheegaya saas weeye kalsoonidu wax ma aha banaanka qofka banaanka ka taala waa wax qalbiyadiisa ku dhex abuuran ama maskaxiyan qofka ugu abuuran oo xataa laga yaabo in si maaragtay si degdega isu soo jiidataan ama si automatic uu qofkani ay kugu soo jiidaha kalsoonidu marka waa xariga koowaad oo lamaanuhu ay isku hayn kara waayo badanaa haddaa maqashay su-aalaha hadallada ay ka mid yihiin waan kaa niyad jabay qalbiga iga dishay saan kaamaan filanayn waa i xumaysay waa iga fogaatay waa i daneen weyday waa i daryeeli weyday something waxyaabahaas noocaasa waxay soo hoos galaan kalsooni darro intuu qofku kalsooni ka haysto hadal intaas kuma oran karo laakiin maalinta ay kalsoonidiisu dhaawacanto waxaa la yidhaahdaa way fududahay sida kalsoonida loo abuuro wayse kasii fududahay sida kalsoonida loo jebiyo laakiin waxaa adag si kalsooni burburtay loo soo celiyo marka way fududahay inaad qof kalsooni ka samaysato oo sida inaad danayso oo daryeesho oo u dhawaato oo ka farxisay ku xidhan tahay taa bedelkeeda way fududahay inaad qalbiga ka jebiso qof oo ama kalsooni darro ah ku rido laakiin way adag tahay hadhow inaad soo ceshato qofkaas ama qalbigiisa dib u dhaydo marka taasumaan iyadana aan kaga gudbi karno